mustaqbalku waxa uu ku xidhan yahay waxaad qabato maanta. Awooddeenna weyn ee bini'aadantinimo ma aha inaan beddelno caalamka, balse waa inaan beddelno nafaheenna. Ma baahna lacag si aad ugu noolaato si nidaamsan oo nadiif ah oo sharaf leh. Xidhiidhku waxa uu ku salaysan yahay 4 mabda': ixtiraam, fahan, aqbalaad iyo qadarin. Way fududahay inaad la istaagto dad badan, balse inaad kala istaagtaa waxay u baahan tahay geesinimo. Awooddu kama timaado guulaysashada, laakiin markaad dhex gasho dhibaatooyinka kadibna aad go'aansato inaanad isdhiibin, waa taa awooddu. Waxaad aaminsan tahay waxay noqdaan fikradahaaga, fikradahaagu waxay noqdaan kelmadahaaga, kelmadahaagu waxay noqdaan ficiladaada, ficiladaadu waxay noqdaan caadooyinkaaga, caadooyinkaagu waxay noqdaan qiyamkaaga, qiyamkaaguna wuxuu noqdaa qadarkaaga. U noolow sidii aad dhimanayso berri, una baro sidii aad weligaa noolaanayso. Waxaa jira 2 maalmood oo sannadka ka mid ah oo aynan waxba qaban karin: shalay iyo berri. Faraxsanaantu waa marka aad ka fikirto waxaad leedahay iyo waxaad qabanayso in ay iswaafaqsan yihiin. Kuwa garanaya sida loo fikiro uma baahno macallin. Dadaal buuxa waa guul buuxda. Caafimaadku waa hantidaada dhabta, maaha qayb dahaba iyo maartoona. Habeen kasta markaan seexdo waan dhintaa, kadib subaxda xigta markaan soo tooso dub ayaanu dhashaa. Beddel rabitaankaaga si aad u aragto caalamka. Ha xukumin kuwa kale ee xukun naftaada. Haddii aad isku daydo inaad xukunto kuwa kale, waxaad u muuqataa inaad gacmahaaga gubto. Kama fikiri karo khasaare ka badan luminta qof ixtiraamkiis. Haddaad rabto inaad beddesho caalamka, adigu iska bilow. Cadow waa cabsi. Waxaynu u malaynaa nacayb, balse waa cabsi. Ma jiro qof lumiya xornimadiisa ilaa waxa uu sababa daciifnimadiisa. Ficilkaagu waxa uu qeexaa mudnaantaada. Halkuu jacayl yaallo ayay nolol taallaa. Mustaqbalku waxa uu ku xidhan yahay waxaad qabato maanta. Markaad saxan tahay uma baahnid inaad xanaaqdo, markaad qaldan tahayna xaq uma lihid inaad xanaaqdo. Ha lumin iimaankaaga bini'aadantinimo. Bini'aadantinimadu waa bad weyn. Haddii dhibco ka mid ah ay wasakh yihiin, ma aha inay badweyntu noqonayso wasakh. Haddii aynu doonayno nabadda dhabta ee adduunka, waa inaan carruurteenna wax barnaa. Qofku waa inuu ilaawaa cadhada ka hor inta aanu seexan. Ma jiro iskuul u dhigma guriga fiican, mana jiro macallin u dhigma waalidka fiican. Jacaylku waa awoodda ugu weyn ee adduunku leeyahay, waana ka ugu mutadawacsan waxa la qiyaasi karo. Habka dabacsan ayaad adduunka ku ruuxi kartaa. Qofka ugu fiican waa qofka saaxiib la ah noolaha oo dhan. waad xidhi kartaa, waad ciqaabi kartaa, xataa jidhkayga waad baabin kartaa, laakiin ma xidhi kartid maskaxdayda. ugu horrayntii way si kaa indhatiri, kadibna way kugu qosli, kadibna way kula dagaalami, kadibna adaa guulaysan. nabaddu waa hubka ugu awoodda badan caalamka. awooddu waa laba nooc: mid waxaa lagu helaa cabsida ciqaabta, midna kula dhaqanka jacaylka. awoodda ku salaysan jacaylka 1000 jeer ayay ka saamayn iyo joogto badan tahay ta lagu helo cabsida ciqaabta. cidna kama oggolaan doono
inay maskaxdayda kula dul socdaan lugahooda wasakhda. waxaan ku siiyey nabad, waxaan ku siiyey jacayl, waxaan ku siiyey saaxiibtinimo, waxaan arkay quruxdaada, waxaan maqlay baahidaada, waxaan dareemay dareenkaaga. meeshuu jacayl jiro waxaa jira iftiin. quruxdu waxay ka kooban tahay daahirsanaanta qalbiga. markaan u qushuucay la yaabka cadeeddhaca ama quruxda dayaxa, waxay naftayda ku sii siqaysaa inaan caabudo kii abuuray. bilaa ficil meelna kuma dhaqaajiso. waxaad jirta maxkamad ka saraysa maxkamadaha cadaaladda, waana maxkamadda damiirka.